السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal magacayga waxaa la yidhahdaa cilmi waxaan ku noolaa waddankan Poland waxaan ahay waqtiga xaadirka gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida waddankan Poland. Ka soo intaas waxaan leenahay hay'ad la yidhaahdo Foundation for Somalia oo hay'adaasoo gargaarta ama caawisa ajaanibka waddankan soo gala. Waxaa baryahan dambe aad iyo aad ugu soo batay dad doonaya ama raba inay ka soo galaan dhinacaas Belarus waddankan Poland. Kan imaanaya badankooduna waxay ka imaadeen Turkiga sida la ii sheegay ama hadda aan ka war helay. Hadda waqtigan xaadirka ah waxaa Poland dhexdeeda lagu hayaa ugu yaraan 22 qofood oo isugu jira dumar, rag iyo caruur. Dad badanna waa la la'yahay meelaysan cirib dhiga lama yaqaano. maalin walba waxay soo wacaa dad badan far badan oo weydiinaya intay magacyo soo qoraan leeyihiin magacaas ninkaas qofkaas raadinayna ama gabadhaas raadinayna ama wiilkaas raadinayna meel aan ka raadiyo ka bilaabna ma garanayno. Sababtoo ah waxaan idin sheegayaa in dadkan hadda damacsan inay soo baxaan aan u sheegaya kulana dardaarmaya inaysan soo aadin xadkan Poland. sababtoo hadda shaqadu isku bedeshay siyaasadda isku bedeshay waxaa aad isku haysta dowladda la yiraahdo Poland iyo Belarus. waxaa jira 22 qofood oo muddo 20 maalmood ah ku jira inta u dhaxaysa xadka Poland iyo waxa u dhaxayaan iyo Belarus. xaggana waa loo diiday inay noqdaan intana waa loo diiday inay soo galaan. waxaa xataa loo diiday ay booliska diideen in loo geeyo dadkaas meesha ku xayiran ama ku xaniban baahida ku hayso. qaarkood xanuunsan yihiin roob iyo qabowna uu jiro waxay u diideen xataa in la siiyo raashin ama daawooyin. hay'ado badan oo xuquuqda aadamiga wadooda ayaa meesha taga xadkay joogaan way fiiriyaan si qaabka u socdaan way ka diideen in la caawiyo dadkaas inay soo galaan iskaba dhaaf waddanka Poland. waxaa haddana si u yeesho waddankan Poland soo galay inta aan ogahay ama ka warqabo ilaa 22 qofood haba u badnaadeen dumar. shalay waxaan tagay xore ay ku jiraan 4 gabdhood oo Soomaali ah 2 ka mid ay wadato 2 caruur ah mid yar oo caruur oo naas nuugaya iyo mid kale oo 5 jir ah. daraad waxaan turjumay 9 gabdhood oo ayna soo galeen nasiib u yeesheen soo galaan. intaas waa inta nasiib u yeelatay inay soo galaan waddankan Poland. si kastaba way soo galeen ayagana maxkamaddu waxay ku xukuntay min 3 bilood oo waxay u diraan meel xero aan laga bixi karin ama oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa xero aan laga bixi karin ajaanibta loogu talagalay. halkaasoo laga baaran tagay in waddanka laga celiyo inay waddanka joogaan. marka waxaan idinkula talinayaa inaadan soo bixin. haddii aad Belarus joogtaan inaadan isku dayin inaad ka soo gudubtaan. waqtigan xaadirka ah waxaa la geeyey markii hore waxaa meesha mas'uul ka ahaa ciidamada xuduudaha. hadda waxaa la geeyey military. waxaa la dhisi doonaa derbi. waqtiga xaadirka ah waxay ku xireen meeshii silagay ku xireen fiilooyin ku xireen ilaa hadirtaan oo ilaa 2 mitir gaarayo. waa sida arrinta ka socota ee sameeyeen nimanka la yiraahdo Hungary ee sameeyeen. marka haddii qof Belarus joogo waxaan kula talinayaa inuusan xadkan soo aadin. maanta waxaan arkayay dhalinyaro soo duubay video oo joogo inta u dhaxaysa Poland iyo Belarus oo dadka weydiisanaya mucaawino sababtoo ah qabowna wuu dilay roobna wuu ku da'aa baahi waysaa xaggan uma noqon karaan waddankana loo magal inay soo galaan. marka intiinaas hadda waqtiga xaadirka joogta Belarus ama kuwa doonaya inay ka soo baxaan Turkiga soo aadan dhinaca Belarus waxaan idin sheegayaa dhibaatadeeda ayay leedahay. ninkii doonaya inuu israfaadiyo ama u silco soo baxo. laakiin ninkii iska naxaya waxaan u sheegayaa waqtiga xaadirka qabowna waa la galaya hadeer. xilli waxaa la galaya roobabka badnaa ay da'ayeen qabowna waa soo dhowyahay. waxaad ku tala gashaan inaan xeradan intaan waddanka Poland lidin soo daynaynin haba yaraatee. ninkii soo gala nasiibkiisoo qabaan waa nasiib. aniga ma dhahayo mataqaana qaarkood waxaa laga yaabaa xadkan waa weyn yahay. ma fahamteen waa laga yaabaa dadka inuu nasiib u saamaxo inay soo gudbaan. laakiin waxaad ku tala gashaan xataa haddii aad soo gudubtaan inay rafaadkeeda leedahay. sababta arrintan wax isku bedeshay siyaasad
sababta dadkan Belarusia iyo nimankan Boolishka waxay aad siyaasadooda u xumaatay. Marka nimankan Belaruska waxay bilaabeen inay ku xumeeyaan wadamadan Yurub. Markaas yiraahdeen wax alaala wixii qaxootiga soo mara ma sii deynina. Markii hore ayaga celi jiray, hadda way yiraahdeen way fasaxay faraha ka qaadeen. Marka hadda nimankan la yiraahdo Lithuania la yiraahdo iyo Poland la yiraahdo waxay go'aan ku gaareen inay xadkooda inay xiraan. Marka ninkii doonaya inuu soo baxo ama ku soo tala jiray inuu soo baxo waa haddaan Soomaalina wax iska maqlayno, waxaan iskula talinayaa walaalayaal inaadan soo aadin waddankan Poland waqtigan xaadirka ah. haddii aad soo aadaysaan aad meel kale soo martaan, aadan soo marin dhinaca Belarus iyo dhinaca Lithuania intaba aadan soo marin, sababtoo ah dhibaato aad iyo aad u xoog badan aad kala kulmaysaan. Waa iga dardaaran. Anaga Soomaalina waa isnaqaanaa, waxaa laga yaabaa mataqaanaa inaan adiga dadkaas Yurub ay joogaan fahamtay Yurub ay noo diidiin waxyaaba noocaas. cid Yurub idinka xigta ma laha, laakiin qofkii raba inuu naftiisa soo halaago ama soo dhibaateeyo isagay u taallaa. Aniga waa iga dardaaran, waan idin sheegaya waxaan ahay qofka Soomaalida u turjumo. Qofka markuu halkan yimaado qofka Soomaaliga u turjumaana meel alla markii Soomaali lagu qabto aniga Soomaaliya u turjumaan. sidaan idiin sheegaya hadda waxaan ogahay waan u turjumay ilaa 20 qofood oo nasiib u yeeshay inay soo galaan 6 bisha laga soo bilaabo 8 bisha 16 bisha qaar nasiib u yeeshay inay soo galaan. laakiin waqtiga xaadirka ah arrinta aad iyo aad ay u xun tahay. waa iga dardaaran. waa mahadsantihiin.